ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ayaa gebi ahaanba la wareegay ammaanka caasimadda maamulka Galmudug ee Dhuusamareeb waxaana haatan la arkayaa gudaha magaalada iyo daafaha magaalada ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya oo gaaf wareegaya guud ahaan magaalada. arrintan ayaa salka ku haysa imaashiyaha madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wufuud sare oo ka tirsan Villa Soomaaliya kuwaas oo ku soo wajahan xarunta maamulka Galmudug ee Dhuusamareeb. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa la filayaa inuu saldhigto magaala madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb iyadoo la rumaysan yahay inuu ka hogaamin doono howlgalka wajiga labaad ee karana kooxda Al-Shabaab sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan Villa Soomaaliya. socdaalka madaxweynaha waxaa ku wehelinaya madax sare oo ka mid yahay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad iyo waliba taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka. Dhuusamareeb ayaa la filayaa in ay martigeliso Villa Soomaaliya oo doonaysa in qabashada ceelbuur iyo deegaano kale oo muhiim u ah kooxda Al-Shabaab ay ka hogaamiso magaala madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb. ammaanka Dhuusamareeb haatan waxaa gacanta ku haya ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaana gudaha iyo banaanka magaalada lagu arkayaa gawaarida gaashaaman ee ciidamada NISA oo gaaf wareegaya guud ahaan magaalada. sidoo kale waxaa hakad la geliyay isku socodka dadweynaha waxaana soconaya baaritaano iyo xaqiijin dhanka ammaanka ah kaas oo ay sameynayaan ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. dhanka kale waxaa garoonka soo gaaray daqiiqado ka hor ciidamada loo yaqaano koofi casta kuwaas oo ka mid ah ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya kuwaas oo hordhac ugu yimid wafdiga madaxweynaha ka hor inta aysan ka soo deginin garoonka diyaaradaha ee Dhuusamareeb. haddaba daawade adiga ayaa noqon doona daawadaha koowaad ee hela xogaha iyo macluumaadka degdega ah ee ku saabsan xaaladda magaalada Dhuusamareeb iyo guud ahaan Galmudug